الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ولا ليال مركا أوه الرئيس إلهي بام هاد إسكاله، إله وين واحدك أيام هاد إسكاله مهاد إيدي الكيدي لما أنت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إلهي عبسدي سين يصدر دار مينا نولشين وحي معنا كل هذا هاي جيريدي إننا أيكون أكسنان دونتا إلهي إذنكي إلهي إنه كعبصر أنا قايدين الله يدين كبا وحي إنه يسكب برارو تشينينا إلهي عبسدي سا إنه كد ذا اللقفك ربي كعبصر وإلهي كحشوضه وربي إسكايغه إنه وقت وحي إنه تشوغناه dadku diintii iyo dunyadii ilaahay wuxuu ugu talagalay diintu adduunka inay hogaamiso, laakiin maanta waxaynu joognaa waqti adduunka iyo hawadu diinta ay hogaaminayaan oo ka horeeyaan. waxa lagu badbaadayaa qofku ilaahay inuu ka cabsado. waxaynu joognaa adduun qofku bani aadamka iska eegayo xaqiisa, ilaahay xaqi aanu iska eegaynin. bani aadam uu sharaf ka raadinayo, bani aadam uu iska gadayo, ismaqashiinayo, istussayo ayaynu joognaa. ilaahay xaggiiba la iska ilaaway ilaa man raxima rabbi, ilaahay qof u naxariistay mooyaane. soomaalida waxay tidhaahdaa xag ilaahay ninka eedla xan aadane waxba ma yeesho. ku dadaal ilaahay xaggii inaad ka eedlaada, xagga ilaahay inaad ka saxan tahay, jidka ilaahay inaad ku quman tahay ku dadaal. dadka bani aadamka ee muslimkana si wanaagsan ula dhaqan oo akhlaaq iyo diin iyo gobonnimo dadka ula dhaqan. wixii xun ee aadan jeclayn in lagugula dhaqmo dadka muslimka ah kula dhaqmin, qowl iyo ficilba. wixii wanaagsan ee aad jeceshay in lagugula dhaqmana dadka kula dhaqan. haddaad dadka si wacan ula dhaqanto oo ixtiraamto, ummaddu way ku ixtiraamayaan, si wacan bay kuula dhaqmayaan. haddaad ummadda ka xishoon weydo, cid kaa xishoonaysa adiguna ma jirto. intaa bacdigeed waxaa inagu soo socda marti culus, hadiyad qaali ah ayaa inagu soo socoto. rabadaan bishii qiimaha badnayd, bishii ilaahay bilaha uu si gaara uga doortay cibaadadeeda soonta ee isagu isxejiyey baa soo socota. nin nasiib laa gaadha, caafimaad ku gaara, nabadgelyo ku gaara, khayr ku gaara. imisaa qof oo bisheedii noolaaba ciid lagu rogo xabal hoosteed caawa ku jirta. imisaa god ku jira caawa aad garanayso oo shacbaanteedii noolaa. imisaa shacbaantan bilowgeedii noolaa oo caawa la aasoo god ku jira aad garanayso. imisa ilaahay adiga nolol buu kugu soo gaarsiiyey. sanadka dhexdiisii dadkii ku haray ee geeriyooday ilaahay kaama dhigin. waa kan waad qoyan tahay, aniga idinla hadlaya idinkaba weli waa nool nahay alxamdu lilah. nafti waa inagu jirtaa, ajashiya saacaddii ma iman. maxaa ilaahay waqtiga kuugu furaya, kuugu dheeraynaya? inaad ka faa'iidaysato, inaad ilaahay ugu dhowaato, inaad acmaal saalixaada samaysato weeyaan. qofku waxaa la saaxiiboo ku lamaan buu nabigu yidhi 3 shay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. shayga koowaad ee qofka ku lamaan ee la socda waxa weeye maalkiisa. wixii aad bixiso oo ilaahay hortii dhigato, ilaahay rasuulkiisii wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, adaa iska leh oo ilaahay agtii bay kuu taallaa. waxaadan bixinay aad haysatee kuu kaydsan ama kuu yaallana adigu ma lihid. shayga labaad ee qofka ku lamaan waxaa la yidhaahdaa waa qaraabadiisa iyo ehelkiisa iyo islaamku ku dhex nool yahay. way la socdaanoo way ku xidhan yihiin oo wuu ku dhex nool yahay ilaa ay gaadhsiiyaan albaabka ilaahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. albaabka ilaahay waa kee? waa qabriga. ilaa ay gaadhsiiyaan baab almelik. qabriga markay ku geeyaan oo naftu kaa baxdo, kulli waa kaa soo noqonaya. wehelka iyo saaxiibka saddexaadna waa camalkaagii. wuxuu ku odhanayaa meeshaad geshidna waan kula gelayaa, meeshaad ka baxdana waan ka baxayaa. qabrigana wuu kula gelayaa. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam, qofku wuxuu odhanayaa 3 shay midkaan ugu dadaalka liitay ee aanan aad ugu dadaali jirin waa kaa godka ila gelaya camalkaygii ah. camalkaa saalixa ah
noloshaada inta ka dhiman ilaahay ballan la gal subxaanahu wa tacaala. ilaahay wax isku ogaada. noloshaada inta ka dhiman wax ku harsan ma ogid. aniga idinla hadlaya habeenada ii haray ma ogi. idinkaan idinla hadlaya waxa idin harsan ma ogi. qof is ogi ma jiro, laakiin geeri baa soo socota. ilaahay wax isku ogaada. ilaahay wax isku ogaada subxaanahu wa tacaala. inaad diintaada ku qumanaato, ilaahay ku xidhnaato, toosnaato, ummaddu kaa nabad gasho, naftooda iyo maalkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda ku dadaal. waad mahadin doontaa maalintaad geeriyoonayso. si wacan baa ilaahay adduunka kaaga ambabixinaya. markaad ambabaxdana si wacan baa ilaahay kuu soo dhowayn doonaa iyo malaa'igtiisu iyo qabriga. si wacan baad qabriga u seexan doontaa. si wacan baa ilaahay kuu soo saari doonaa. rasuulkii baad la kulmi doontaa. waxaad ka cabbi doontaa xawdkiisii, gacantiisii sharafta lahayd buu kugu waraabin doonaa. shafaacadaysaad geli doontaa. jannaduu kuu hogaamin doonaa. miisaankaagaa cuslaan doona. jannaad ku dambayn doontaa. haddii kale waad shallaayi doontaa maalin aan shallayta waxba ku tari doonin. as'alu allaha asalaama walcaafiya. bishii ramadaan baa soo socotan isugu bishaaraynaynaa. waa bisha ilaahay bilaha uu ka doortay ee soonkeedu cibaadada uu yahay. anaa iska leh, anaa abaal marinaya. 8 albaabee jannaduu ballaqaa habeenkaa bishaasi bilato. 10kii u dambeeyaynu ku jirnaa shacbaan oo maanta 22 arageennii marka laga eego. habeenkaa u horeeya ilaahay albaabadeeda ballaqaya. waa bishii qur-aanku soo degay. 7 albaabee naarta ilaahay xidhaya. maxaa ilaahay jannada u ballaqay oo udgoonkeedii iyo quruxdeedii iyo khanan qiimaheedii kala duwanaa iyo darajaadkeedii maxaa ilaahay u soo bandhigayaa, inoo jeclaysiinaya. carabkii rasuulka muxuu u soo mariyey oo waxyi ah ilaa yowmina haada uga hadlayaa inuu ilaahay ku soo dhoweeyuu rabaa, inuu dembigaaga dhaafuu rabaa. waa ku jecel yahay alle subxaanahu wa tacaala, inuu ku janneeyuu rabaa. naar kulama rabo, jannuu kula rabaa. ka faa'iidayso alle ku leeyahay. markaasuu caqli ku siiyey, markaasuu caafimaad ku siiyey, markaasuu diin ku siiyey, markaasuu nebiga kuu soo diray calayhi salaatu wasalaam, kitaabna kuu soo dejiyey. soo gal jannadaydi, waa laguu ballaqay. shayaadiintii dadka dhibaysay buu kuu ballan qaaday inuu kaa xidhxidhayo. habeenkaa u horraysuu ilaahay xidhxidhaya subxaanahu wa tacaala. kuwii madaxa adkaayee bini aadamka ku sallidnaa, kuwii basaa'ibta ah oo dhan baa lagaa xidhaya inaad jannada gasho oo fursadda alla ku siiyo. markaasaa lagu war ninkii khayr doonayo, warkii janno doonayo, warkii dembi dhaaf doonayo, soo dhowow kaalay. wakhtigii jannada iyo dembi dhaafka iyo waa la joogaa iyo jaaniskiisii. warkii xumaan iyo shar wadow, xilligu xilli xumaaneed maaha, xilli shar maaha, xilli dembi maaha, xilli xumaan iyo xaaraan iyo macaasi maaha. war gaabso, war joog, war cabso, war xishood, war alla u noqo, war isqabo ayaa lagu leeyahay. waa bishii qur-aanku soo degay. waa bishii ilaahay kitaabka cadiimka hadiyadda qaaliga inoo soo dejiyey. 3 meelood buu qur-aanka alla kaga tilmaamay. alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan. bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey. mar dhexe fii suurati dukhaan aayadda 3aad inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka. waxaan qur-aankii soo dejinay habeen barakaysan. mar 3aad inaa anzalnaahu fii laylati alqadri. waxaan soo dejinnay habeenka laylatulqadarka la yidhaahdo. sida ilaahay kuugu dhigdhigayo fiiri subxaanahu wa tacaala. waa bishii qur-aanka la akhrin lahaa. waa bisha la rabo nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam. isaga iyo jibriil baa wada akhrin jiray qur-aanka ramadaan walba. sanadkii geeridiisa u dambaysay, ajashiisu soo dhoweyd calayhi salaatu wasalaam, ee sanadka dambe aanu gaarayn ramadaantii alla ogaa. 2 jeer bay jibriil qur-aanka dhammeeyeen. haddaa qur-aanka alla uu ku baray, hadduu qur-aanka alla ku baray, qur-aanka aad u akhri ramadaanta. aad u akhri. waxaad isku daydaa ramadaantan soo socota weligaa intaad qaan gaadhay si aadan qur-aanka u akhrin ramadaantan u akhri. waayo inaad dhiman doonto tagala gaari doontid. wallaahu aclam. tan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wax badan dhex dhigo. intaad dhammayn karto qur-aanka dhammee. iska hololabay, iska shalolabay qur-aanku maaha. nebigu wuxuu yidhi laa hadan ka hada shicr, ka hadi shicr. sida gabayga loo dareeriyo looma dareeriyo qur-aanka. si qur-aanku tadabbur liakhri. aayaadkiisa cadaabka ilaahay ka magan gal markaad marayso. jannada iyo khayrka markaad marayso alla weydiiso, ku cibro qaado. tawxiidka iyo qisaska iyo qiimuhu qur-aanka sheekaynaya. cabdullahi bn cabbaas mascuud wuxuu odhan jiray laa yakun hamu axadikum aakhiru suura. qofkiin yaanu noqonin markuu qur-aanka akhrinayo suuradda dhammee yaanu is odhan. si muglow miisaan loo micnahaysa qur-aanka la dhuuxaya qur-aanka ha u akhri.
وبشي ديق يا صدقة والنبي ابن عباس وكشيا كينا يسوى رسولك ودتك وجود ديقسي سنة وجونا جيسي سنة صلوات الله وسلامه عليه بشهر رمضان وكسي حكشري سيانو بلاها كلي وحب حنشرين بوحب حنشرين النبي عليه الصلاة والسلام إلى صحابته كنت المامين ضد روب فلانيا oo saxansaxadii roobku ku soo dhacday udgoonkeedii iyo qabowgeedii neecawdeedii roobka ka horeysay intaanu roobku soo gaarin say roobka uga soo dheerayso rasuulku waa kala degdeg badnaa sadaqada iyo deeqda wax bixinta bisha Ramadaan salawaatu Ilaahi wasalaamu alayhi qofan faqri ka baqin sideedii wax bixin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam qaraabada iyo riximka wixii aaba iyo hooyo xaqiisa ka soo jeega xidid iyo xigaal wixii kugu lifaaqan muslimka waxaad wax ku dhaanto bixi wax yar hadaad haysato xitaa بحي وحير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة استتري من النار عائشة النار وحسكحتي ولو بشق التمرة تمر شاهد بعد بحسدي وحسكحتي النار والنبي صلى الله عليه وسلم وحد يسد لبح إلهي يقول له سبحانه إلهي وكو أركا واحد شايب كاغا كتشرو أقيح واحد بحين يسو أقيح وان هنتي راهي لقمها رديق دي خير كي صدقه قف صومن أفوريي أجر كيسو كلو ليه هيبو النبي عليه الصلاة والسلام وبشي عفسك وعائشة وعي تري هدانو قادو هبين كان إنو يهي هبين إلهي سبحانه وتعالى أماني ليلة القدر كا محاني هذا واحد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وبشي عفسك اسكع في ضدك هذه سيسان أما يسكن أحسنتهين وظهر له إسعفيه إسسامح رمضان أنت أنا يسوقلين إلهي إنه كعفيه سو مربتيت إلهي إنه كسامح سو مربتيت أضو عقدات قبا وأنت سوقف ما وظهر الله اسم السلام وحما أنت الله الشيء وهدي الله يسوق قلكينه وأمعنا بدنا أنا تشرين هكذا قدين عفيس كي يرافد إلهي سبحانه وتعالى كوا إلهي النار تكحرين يسوق وقدره ولا كان مسلم كذا إسهيسان إسعافية هدو ديدو ترى ورئيس سامحنا وإسعافينه هذه وحكوا لما تشران حق هدوك وقوم قيم حقي سإسكبه بشان رمضان وبشي دعاء وبشي استجابة مكو إلهي آيات كرمضان تكسو شيكي وهكيي نحدو كوهكي مكو رمضان تكسو شيكي آيات كيدي وحب نحكي لي الله سبحانه وتعالى دعاء يا بريضة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سداد ضمير وآياتها كتير سداد بإلهي ونقول سبحانه وتعالى وبشي دعوة قفك الصومني الدعاء سلم عليه بالنبي عليه الصلاة والسلام مركو أفريه إلهي إناد بريده سبحانه وتعالى أفرد كهر إناد إلهي آذو بريده مالنتا كختنته دعائي ورد قبل كوكو دعاء الله بريه مركا لأدمنا هكون مشغول أفردا ساعة قالقة يكدافين بحبدا تمرتا هداد عنتو سوچيسو يا ربي ده إلهي قعمها قوليقو ما أجيد إنا رمضان دم يسان دونتو ما أجيد تامت كدم بيسا إنا تسومي دونتو مالنتا ساسونتيو تشوكتا دبقوسو خير إيا باهي أدون بعد ليدهي باهي آخرات ليدهي بقرآن وحبواين وحولي بأكتي سبوحان بعد برييسا إلهي بري سبحانه وتعالى ومركاد إلهي برييسو بريادا هذا والد كائنات أدعيسو هكا إلاوي ومسلمين تائنات أدعيسو هكا إلاوي مداد إسهيساني مداد إسهينبا مسلم كأدعيه ودن إلهي دعاء هذا وأقبله سبحانه وتعالى وبشي صلاة تراويح دا لتكني مسلمين تراويح دا إمامك لتكو أفراد مركاد أنت وحبا هعنين إن يروا كوبا وقاتشدي رمضان تأت كتشبي صعيعون علوش هذا ووحبا أن يكون فاروق تهي وكالي عشها هي تراويح وحي كينيسا إنا تحمشو استاقي يا قرآن كدقيسي تراويح دا تكشدي قفك إمامك تراويح دا لقلا والله ما يستا انت مساجد كان لو تكنيو إلهي أكتي وحالو قريا عاوة أردن صلاة دي عشاء إلى صلاة دي صبح أدون إلهي هرتاقنا وصلاة تكنيا لقو قريا ذاتك قاربا أفر ركعة وانت لتكدان اير اسكبحة ودبادة فريستا قاربا انت سديت لتكدان إمامك صدح ذا الضنبيرة هذا السحور تنفع سنيا أجل كاسو نوات كقضي ساملهين لكن مركز لبي لوضو لدم ميسو هذا مركز سحور توستو هداد لهيد صلاة الليل هرأت كنشرتي راتب كوها حلقا توستي توكو
haddaadan hore u tukan jirin salaatuleyl xilligaa aad toostay intaad tukan kartid tuko witirkii un baan habeenka 2 jeer la soo wada celinaynin suxuurtu waa barako oo nabigu wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadku khayr kama zuurayaan maa cajalu lfitra wa akharu suxuur inta ay afurkana dedejinayaan suxuurtana dib u dhigayaan uu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa bishii dhaqaalaha la ilaalin lahaa innaguna waa bishii aynugu kharash bixinta badannahay weey dad maantoo dhan soomanaa oo waxaanoo afura ah waxaanoo casho ah waxaanoo suxuura aqallada subaxii waxaad arkaysaa dusuud raashinoo lasoo qubayo oo la leeyahay riyaha iyo aryuhu ha cuneen dhaqaaluhu waa inuu miisaanaadaa bishan lagu ilaaliya haddaad afurto oo afura fiican aad cunto kooban calooshu inay dheregto maaha 3 u qaybi buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qayb cunno ah qayb hawo ah iyo qayb biyo ah ka dhig buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 3daa u qaybsa calooshaada marka aad gurigaaga tagto haddaad koob shaah iyo koob biyo ku dhufato ama haddaad caano yar heli karto haddii kale iska seexo adoo cunno u baahan baad toosaysaa xilliga suxuurta suxuuro markaad suxuuranayso caloosha dad baa buuxiya afkaa mariya isagoo neefsan la ayuu soo baxayaa wuxuu isleeyahay 12 saacadood baad kaa dambaysay war calooshu sahay ma leh dumarkuna sahay ma leh wax yaroo kooban baad cunaysaa kugu filan bisinkaad u qabanaysaa ilaahay baa kuu barakeynay waxaana ugu fiican buu nabigu nicma suxuuru lmu'min attamru mu'minku wuxuu ku suxuurto timir baa ugu fiican haddaad heli kartid waxaa kale aad cunayso kullamaani timirta ama keligeed ku suxuuro waxyaabaha muhiimka ah bay ka mid tahay bishan aynu aad isu xusuusinayno baaraka allahu fiikum إلهي دنبغيني كي والدكين بهدافو ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالأمن والإيمان والصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا غفار يا الله اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم نور قبورهم ووسع لحودهم يا ذا الجلال والإكرام وافتح لهم أبواب الجنة ليجدوا ريحها وريحانتها اللهم اجعل والدينا ممن يشربون حوض الحبيب شربة لا يظمؤون بعدها اللهم اجعلهم ممن يدخلون شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل والدينا ممن يستظلون تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين واجعلهم في أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم أنت الستير استر عيوبنا في الدنيا والآخرة اللهم أنت المحسن نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وميتة السوء وموت الفجأة يا ذا الجلال والإكرام أقم الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد